haddaba dagaaladii sokeeye ee ka dhacay waddanka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu ahaa mid aanan waxba reeban, isagoo galaaftay dad iyo duunyaba, deegaan iyo weliba daaqsin intaba. Waxa uu ahaa dagaal umuladoox oo weliba cidna aanan ka tegin. Wuxuu saameyn baaxad weyn leh ku yeeshay dadkii Soomaaliyeed ee deganaa dhulkaasi, iyadoo dagaalada iyo dagaalyahanadaba aysan wax u aabayeeleynin. Haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo iyagu ka mid ahaa qaybaha bulshada ayuu dagaalkaasi si toos ah ama si dadban ah saameyn ugu yeeshay, iyadoo fanaaniin badan ay ku dhinteen dagaaladaasi Soomaaliya ka dhacay ee sokeeye, ha ahaadaan kuwii kacaanka lala galay, ha ahaadaan kuwii taliskii Maxamed Siyaad lala galay, ama aado kuwii dambe ee Soomaalida iyada dhexdeeda isdooxaysay. Fanaaniin badan ayaa iyagu lagu dilay si aana qabiil ah iyo weliba siyaabooyin kale oo kala duwan dagaaladii ka socday gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba maanta waxaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa qayb kale oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee iyaga kayiga Soomaaliyeed caanka ka ahaa, oo iyaga ka qayb qaatay dagaaladii urdooxa ahaa ee sokeeye ee ka dhacay geyga Soomaaliyeed, iyagoo kaga qayb qaatay heesahooda, erayadooda iyo weliba codkooda iyo maankooda iyo maskaxdooda, taayo ay ku dhiirigelinayeen jabhadihii kala duwanaa iyo hogaamiye kooxeedyadii kala duwanaa ee dagaalada sokeeye ka aloosayay geyga Soomaaliyeed, colaad xunna ka sameeyay waddanka Soomaaliya. haddaba maanta fanaaniinta aynu soo qaadanayno waxaa ka mid ah fanaankii weynaa ee codka halaasiga lahaa, fanaankii caanka ahaa ee macalinka muusikada, mu'alifka, mulaxinka iyo weliba mutribka ahaa ee Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi. Cumar Mahdi wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda fanka Soomaalida soo bilaabay, hormuudkan u ahaa, seeskana u dhigay, welibana ka qayb qaatay kor u qaadistiisa fanka iyo suugaanta Soomaalida intaba. haddaba dagaaladii sokeeye ee waddanka lagaga bixiyay taliskii rajiimka ahaa ee Maxamed Siyaad ayaa fanaaniin badan waxay la kala safteen qabiiladooda, jabhadaha ay qabiiladooda matalayeen iyo weliba kooxo kala duwan. Cumar Dhuule ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa jabhadii UAC, isaga iyo fanaanada weyn ee Xaliima Khaliif Cumar Magool, Cabdalla Yuusuf Hanuuniye iyo dad kaloo badan ayaa iyagu waxay u ahaayeen microphone heesaha ku dhiirigeliya maleeshiyaadka u dagaalamaya jabhadda UAC, iyagoo ka qayb qaadanaya maankooda iyo maskaxdooda iyo weliba codkooda iyo rayadooda inay dhiirigeliyaan maleeshiyaadkii jabhaddii UAC iyadoo la dagaalamayay rajiimkii Maxamed Siyaad oo isagu waddanka laga bixinayay. Cumar Dhuule ayaa isagu wuxuu kaga qayb qaatay heese aad u badan. Hees waxaa jirta caan ka noqotay geyga Soomaaliyeed ee mujtamaca Soomaaliyeed dhexdiisa. Cumar Dhuule ayaa heestaasi isaga iyo Magool waxay kaga qayb qaateen kicintii jabhaddii UAC iyo weliba in lala dagaalamo dhulkana lala simo rajiimkii Maxamed Siyaad, magaalada Muqdisho iyo dhulalka Soomaaliyeedna laga sifeeyo. haddaba heestaasi oo hees aad iyo aad caan u noqotay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybta koowaad, taasoo Cumar Dhuule uu ku dhiirigelinayay maleeshiyaadkii ku kacsanaa rajiimkii Maxamed Siyaad. waataan gabaahir galaayuus ku joognee gudcurkii cadduu dhalay, dhulkii geeriyeysnaa garab iyo rag buu helay. waataan gabaahir galaayuus ku joognee garawshiya weyne, gudcurkii cadduu dhalay, dhulkii geeriyeysnaa garab iyo rag buu helay. jabhada gadooda na gardaadinayo, jabhada gadooda na gardaadinayo, gaygeeni maantaba gacantaan ku haynaa. Dhuule fanaaniinta kale ayaa iyagu goobaha dagaalka, xafladaha ay kaga tashanayaan UAC arrimahooda ayay ka heesayeen kana dhiirigelinayeen, iyagoo halkaasi ka soo gudbinayay heese xamaasadeysan oo ah kuwii kicinta iyo abaabulka. fanaanka kale aynu soo qaadanayno waa fanaanka Cabdirasaaq Gaadaco lagu magacaabo. Cabdirasaaq Gaadaco oo ka soo jeeda gobolka Mudug. Cabdirasaaq Gaadaco wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta dabayaaqadii 80-aadkii fanka soo galay.
waxa uu dagaaladii sokeeye markii dhacay ka mid ah jabhadii UAC isaga fanaaniinta Cumar Dhuule iyo Hanuuniye iyo Magool iyo markii wuxuu kaga duwanaa wuxuu qaatay hubka isagoo qayb ka ahaa dagaalka live-ka oo tooska haddii laga tago heesaha uu qaadayay Gaaduco ayaa isagu wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaadkii dagaalamayay wuxuuna kaloo ah fanaan heesaha u qaada maleeshiyaadkaasi si uu u kiciyo ama abaabulka dagaalada qabiilka iyo kan sokeeye uu kaga qayb qaato Cabdirasaaq Gaaduco ayaa isagu hees wuxuu qaaday caan ahayd hees uu qaadana waxaa ka mid ahayd erayadeeda sida tan qeybaha dambe ee barnaamijka ayaynu ku soo qaadan doonaa fanaaniin kale oo iyagu qayb ka ah dagaaladii sokeeye ee ka dhacay geega Soomaaliyeed ee aan waxba la isu reeban barnaamij noocan oo kala intaynu dib dambe ugu kulmi doono nabaadiino nooli kulante iyo amaan Allah